dadka milyaneerada ah ee lacagta haysta kama badna boqolkiiba hal tirada dadka caalamka haddana waxay haystaan oo gacantooda ku jirta boqolkiiba 50 hantida adduunka taala macadka la talinta dhaqaalaha ee caalamiga ah Boston Consulting Group ayaa warbixin u soo saaray 7 bishan Juun waxa uu ku sheegay in 18.5 milyan oo qof oo milyaneerada caalamka ay haystaan boqolkiiba 740 hantida diyaarka ee taala dunida korkeeda taasoo u kala qaybsanta hanti ma guurta saamiyo ay seelidaha ku leeyihiin iyo ganacsiyo kala duwan oo ay ku jiraan iyadoo isugoyn hantidoodu gaadhayso 8.7 bilyan iyo 800 oo milyan oo dollarka Mareykanka dalka Mareykanka ayaa waxa uu galay kaalinta koowaad marka laga hadlayo tirada milyaneerada ay ku nool wadankaas kuwaasoo gaadhaya 80 milyan oo hantiilayaal milyaneer ah waxaa ku xiga wadanka Shiinaha oo ay ku nool yihiin 2 milyan oo milyaneer dalka Faransiiska ayaan dab yar shidaynin kaasoo ay ku nool yihiin 445 kun oo qof oo milyaneero ay kiishadu u buuxda warbixinta macadkan ayaa dhanka kale waxay sheegaysaa in hantida ugu badan ee meel laga wada heli karaa ay taalo waqooyiga qaaradda Ameerika halkaas oo ay milyaneerada ku dhaqan haystaan boqolkiiba 65 hantida gaarka loo leeyahay ee gobolkaas hantidaas oo u dhigmaysa 60,400 oo bilyan oo dollar iyadoo la saadaalinayo in xaddiga lacagtaasi kor u kacdo oo gaadho boqolkiiba 69 sanadka 2020 warbixintu waxay kaloo cadaysay in hantida gaarka loo leeyahay ee caalamku ay sanadkii 2015 korodhay wax ka yar boqolkiiba 5.2 oo kaliya halka ay sanadkii ka sii horeeyay 2014 ay hantidaasi korodhay boqolkiiba 7